saaka oo ay tahay taariikhda 13 bisha afraad 2025 waxaa farxad noo ah haddaan nahay bahda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya in hay'adda isgaarsiinta qaranka ay ruqsad siisay shirkad caalami ah ama international ah oo lagu magacaabay Starlink. shirkadaas oo ka shaqeyn doonta dhinaca isgaarsiinta muddo dheerna ay hay'adda iyo shirkadda u socotay sida oo maarayahaba sheegay wada hadal la xiriiro shuruucda maalgashi ee dalka gaar ahaan dhinaca isgaarsiinta. shirkaddan Starlink waxay buuxisay dhammaan shuruucda iyo qawaaniinta dalka u yaal gaar ahaan dhinaca isgaarsiinta. waxaan ku faraxsanahay marka maanta in Soomaaliya ay ku soo biirtay shirkad caalami ah oo ka shaqeyso 140 dal in ka badan Afrikana aan noqonay dalka 12aad sida ay noo sheegeen. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego dalka Soomaaliya wuxuu ka soo kabanayaa burbur. waxaan ku jirnaa marxaladdii dib u kabashada maadaama dalka markii hore meesha uu joogay iyo maanta meesha uu joogo kala duwan yahay. waxaa u soo wada tartamaya dhammaan shirkadaha caalamiga ah inay maalgashtaan dalka. maadaama aan ka tirsannahay ururka oo bariga Afrika, maadaama shuruucdeena lala gareeyay shuruucaha caalamiga ah oo dalkana uu u furan yahay qof kasta oo maalgashi daneynaya inuu maalgashto sector walba ama dhinac walba, keliya ay ku xiran tahay in shuruucda dalka oo waafaqsanaado. marka maanta shirkaddan Starlink waxay ku soo biirtay shirkadaha Soomaaliya maalgashanayo ayna ka faa'iidi doonaan ummadda Soomaaliyeed. waxay ka shaqeyn doonaan dhinacaas isgaarsiinta gaar ahaan internetka oo maxaa la dhahaa laga rabo in baahiyaha meelaha fogfog ay buuxiso, sida in la helo internet jaban, in la helo service ama maxaa la dhahaa quality-ga. waxa lagu tartami doono waa quality-ga. waxaan u rajaynayaa maxaa la dhahaa shirkadda Starlink kusoo biiridda Soomaaliya ay kusoo biirtay iyo shatiga ama laysanka ay ka qaadatay hay'adda isgaarsiinta oo NCA inay durba u howlgalaan sida heshiiska uu yahay, sida ugu dhaqsiyaha badan. wixii maanta ka dambeeyo waxay noqon doonaan shirkad howlgasha ummadda Soomaaliyeedna service siiso sida shirkadaha caalamiga ah ee dalka joogo ay la mid noqon doontaa. waxaa kaloo ay fursad u noqon doontaa ama shaqo abuur u noqon doontaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo 75% lagu qiyaaso oo intooda badanna shaqo la'aanta. waxay ka heli doonaan fursad ay loogu abuuro shaqooyin gaar ahaan bahda jaamacadaha ka soo baxday ee baratay isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. ma fududa in shirkad Starlink oo kale ay Soomaaliya kusoo dhiirato oo ay maalgashato. waxaana keenay fursadda Soomaaliya taalla iyo horumarka la sameeyay, dowladnimada horumarka laga sameeyay gaar ahaan dhinaca amniga, dhinaca shuruucda iyo dhinaca maalgashiga. marka maanta waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu bishaareynaya in dalkeena Soomaaliyeed oo marxaladdii hore ku jirin oo marxalad cusub aaday oo ay isku soo dilayaan shirkadaha caalamiga inay maalgashtaan dalka. waxaana ka rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan fursadaha dalka yaalla in laga faa'iideysto. dalka waa naga badan yahay barwaaqadiisa iyo wax fursado taalo. qof walba oo Soomaali ah ama qof walba oo ajnabi ah shuruucda dalka haddii uu u taalo hadduu dhaqan geliyo wuxuu helayaa xuquuq oo ku maalgashto ama ku shaqeeyo. marka waa u mahad celinayaa shirkadda Starlink. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maareeyaha iyo tiimkiisa hay'adda NCA oo shaqo adag qabtay kuna maxaa la dhahaa shuruucda iyo waxa u yaala hay'adda
ku qanciyey shirkadda Starlink markii ay la soo xiriireen waqti badanna ay u socotay dood inay ku qancaan shuruudihii iyo dhammaan wixii laga rabay ee ayagana soo buuxiyeen marka maanta farxadaasaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel walba oo joogta aan la wadaagaynaa waxaana rajayn doonaa in mustaqbalka dhow qarniga hadda lagu jiro qarnigii tiknoolajiyada waaye marka waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed oo aan ogahay jiilka cusub oo dhan inay yihiin jiil digitaala ay ka faa'iidi doonaan suuqa waa furan yahay waa lagu tartami doonaa wax oo caqabada kama jiraan marka waa ku dhiirigelinaynaa Soomaaliyana guul ay u tahay in shirkadaha caalamiga ay ku soo baratamaan waa mahadsantihiin dhammaantiin